safarka shaqee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi uu ku joogo dalka Djibouti oo galay maalintiisii saddexaad ayaa ujeedadiisu ay salka ku haysaa sidii labada wadan ee jaarka ee Soomaaliland iyo Djibouti ay u sii dardargelin lahaayeen xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya la iskana kaashan lahaa waxyaabaha muhiimka u ah labada dhinac. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa booqasho uu korgalida waxa uu ku tagay xarunta isgaarsiinta ee Djibouti iyo qaybta ay tareenadu ka baxaan waxaana uu soo kormeeray qaababka kala duwan ee u shaqeeyaan. waxa madaxweynaha Soomaaliland warbixin ka siinayay marka uu kormeerayay ugana warramay sida ay u hawlgalaan iyo muhiimadda ay u leeyihiin wadanka Djibouti. wasiirada wasaaradaha warfaafinta, gaadiidka, xanaanada xoolaha iyo mas'uuliyiin kale oo kamid ah xukuumadda waxaanay mid u geeyeen qaybahaasi. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa markii uu soo dhameystay kormeerkaasi waxa uu dawladda Djibouti iyo shacabkeeda uu ku bogaadiyay horumarka ay sameeyeen muddadii ay jireen waxaana uu sheegay inay la tartami doonaan. isagoo ka hadlaya arrintaasina waxa uu yidhi ilaa shalay waxa ilaahay mahadiye inaynu arkaynay horumarka uu samaynayo dalka Djibouti waxaana la hubaa dhowr waxyaalood oo horumarka ay gaar u leeyihiin. sida aan shalayba sheegay dadka Djibouti vision code wuxuu siiyey oo ku dhiiradeen iyaga oo dal ahaan iyo dad ahaan dalalka Afrika ugu dad yar ah inay haddana u adeegaan Afrika oo dhan kuwa jasiiradaha mooyee qaarada Afrika gudaheeda ku yaal konton dal ka badan inuu vision code siiyey inay xidhiidh yeeshaan baabtay oo ay u adeegaan. taana waxay ku gaareen waa nabadda iyo deganaanshaha waayo qof degan oo nabad ku seexdo soo toosay ayuunbaa fikir kale u xalka marka tusaale uu noqonaysaa Afrikada inteeda kale wareersan wari qoriga la cararaysa ama is haysata iyada oo gaajoonaysa. programyada ay sameeyeen way dhaafeen in iyagoo quraaxato. shalay waxaan aragnay programkii goobta suuqa xorta ah oo ku talagalay ilaa Kongo inay gaarsiiyaan ay u adeegaan. maantana waxaan u aragnay qoladii isgaarsiinta telefoonada oo iyagoo halka ay ku yeelaan dalka ugu badan ay yaalaan xarko international iyo regional ba oo doonayaan in noqdo marka xaruntii hub meel telefoonada oo dhan waana gaareen oo dalka kale way ka dheereeyeen. marka haddii halkan yaalaan in kii kale uu xarig isaguna ilaa waan dhigayaa oo isku eriyada way ka dheereeyeen way kana diyaar. marka hadda daba orado war raganimo laakiin waxa weey hortaawaan meel u sii diyaarsaday walkayga marka ahlo wasaal ila shaqayso imka waxay nuunay tareenkii oo casri ah ana waxaan qarimada casir joogo caanaana keena markuu dar dhabanayna dadka joogo dhammaan waliba alaab saaran kala boodo oo magaalada dhan baa darbeeyay ahaan jirto ku tulaalay waxa kale mid casri ah oo 12 saacadood ilaa soo soconayo video dheeranaya mara in badan laabka inta ku xoogay garan maaye intaasoo milyuun sanadkii jiiday oo ugu tala galeen intuu adisoo shaqeeyo boqolka Itoobiyaanka haddana soo toodaan galo oo sii socdo. waay anaga de tala ugu dhalinyaro inaan guntiga ka kacno nimanka la tartamo ayaan meesha noqonay. waxa ay tani tusaale fiican u tahay cilaaqaadka cudoon ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliland iyo Djibouti kuwaas oo wadaaga arrimo badan. safarka madaxweynaha Soomaaliland oo ku joogo wadanka Djibouti waa mid si adkeyn doona xiriirkaasi. Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka.